shirkan wadajirka ay maanta Garowe ku yeesheen xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa looga hadlayay xoojinta wada shaqeynta wasaaradaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Puntland iyo sidii loo midayn lahaa siyaasadda iyo sharciyada. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay waxaana ka qayb galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyadoo si weyn looga dooday sidii loo adkeyn lahaa iskaashiga iyo wada shaqeynta wasaaradaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland halka lagu soo bandhigay baahiyaha ka jira deegaanada Puntland iyo mashaariicda kala duwan ee laga fulin karo taasi oo lagu horumarinayo arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa tilmaamay wasiir kasta ay kala dhaxayso wada shaqeyn wanaagsan isla markaana ay xoojin doonaan. Shirkan wadajirka ayaa lagu go'aamiyay ugu dambeyntii si dhaqso ah loo sii daayo maxaabiis ku jirta xabsiga Garowe kuwaasi oo ku dhow 600 oo muwaadiniin ah oo loo haysto falal burcadbadeednimo ah si ay ugu dhameystaan xukunno looga soo riday ama ay ku soo rideen maxkamada ku yaala dalka dibadiisa iyadoo loo marayo hab sharci ah sida uu sheegay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Daahir Maxamuud Geele. taas waxaa dhinac socday dhibaato oo halkan ka jirtay oo ahaa maxaabiis Soomaaliyeed oo runtii muddo xirnaa loona baahnaa in la sii daayana waa laga wada hadlay waxaan la isla meel dhigay ra'iisul wasaaruhu wuxuu amar ku bixiyay ama amar ku siiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka cadaaladda in maxaabiistaasi la marsiiyo loona maro wadadii maxaabiista hore ee dalka dibadiisa ku xirneed ee la soo deeyay hanaankaas in loo maro ayuu markaas u bixiyay. runtii kulan wuxuu ahaa taariikhiya qiimo badan oo altinimo xambaarsan qurux xambaarsan isla joogid xambaarsan saasan dowlad Soomaaliyeed oo sal weyn oo sal adag xambaarsan. Shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu qabtay toddobaadkan magaalada Garowe ayaa lagu ansixiyay sharciga hanti dhowrka guud ee qaranka, tubta horumarinta dhaqaalaha, samaynta shilin Soomaaliga iyo qodobo kale. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay waxaana warbixin looga dhageystay qaar kamid ah golaha wasiirada oo ay kamid ahayd warbixinta amniga oo laga dhageystay wasiirka amniga halka lagu ansixiyay tubta isxilqaam oo ah barnaamij lagu dhiirigelinayo in dalka lagu dhiso iska wax u qabso. waxaa la meel mariyay dhowr sharciga ugu horeeyay wuxuu ahaa isxilqaan hanaan la yiraahdo isxilqaan macnaheedu waxa waaye dowladda Soomaaliya ama ummadda Soomaaliya waxa ku soo foolay munaasabad aad iyo taariikh ah oo ku aadan 2020 maalinka oo dowladda Soomaaliya ay noqonayso dowlad 60 jirsatay marka muddada ka harsan ayaa waxa loogu talagalay in la sameeyo dadaal la yiraahdo isxilqaan oo qofka Soomaaliya saacado waqtigiisa kamida iyo qayb xoolihiisa kamida oo ku bixiyo wax dalkiisa wax tarayo ama ha noqoto bilicdo la hagaajiyo ama ha noqoto dadka la taakulayo ama tacliinta wax laga qabto ama meel dunsan oo la dhiso ama mashaariic la hirgeliyo in aanay dhicin lacag been ah in la abuuro. bangiga dhaxana waxa uu ka warqabaa lacagaha hadda yaalo asaanta ay leeyihiin nambarada ay leeyihiin tirada ay leeyihiin lacagta la soo daabaca wajigeeda hore wuxuu noqon doonaa lacag loogu talagalay in lacagta hadda taalo dadku ay isticmaalaan oo xoolahooda ay ku jiraan ee dhididkooda lagu bedelo mid ay qaadan karaan ay isticmaali karaan ay keedsan karaan ay wax ku iibsan karaan oo kalsooni adduunyada ka haysato. taas haddana waxay ahayd lacagta markii laga hadlay dhanka kale sharci kale ayaa la meel mariyay oo leeyahay sharciga hanti dhowrka guud hanaanka uu shaqeyn doono taas oo muhiim u ah aaminaad dalka Soomaaliya la aamino iyo wax ka qabashada hanaanka musuqmaasuqa lagula dirirayo ama musuqmaasuqa in wax laga qabto asagana waa la meel mariyay. golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale shirkooda uga hadlay joojinta colaadda tukaraq iyadoo ku baaqay in dagaalka lagu bedelo nabad isla markaana la dhameeyo waxyaabihii sababay dagaalkaasi iyo gaboodfalo ka dhacay xuduudka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya ka oo loo saaray guddi sidoo mar kale warbaahinta uu sheegay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Daahir Maxamuud Geele. arrinka tukaraq dagaalada ka jira ugu horeyn colaadahaas markay bilowdeen dowladda Soomaaliya isla daqiiqadii ama saacadii ugu horeeyay waxay isku dayday inay wax ka qabato dadaalo badan oo aan kala go'an lahayn oo ilaa iyo maanta socda ayay sameysay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu dadaal ay labada qaybood ay la xiriireen ayay sameeyeen. madaxweynuhu waxa uu la hadlay walaalkiis madaxweynaha Somaliland iyo walaalkiis madaxweynaha Puntland waxa uu kala hadlay
dagaalka in la joojiyo la nabadeeyo xaaladdu ay ku noqoto intaan xabaddu bilaaban ka hor sida ay ahayd dadkaasi waxay baahida ay u qabaan ay tahay oo ugu weyn inay nabad helaan oo nabad waarta meesha ay ka dhacdo runtii dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa arrinkaani inuu opposite ku yahay la jaanqaadka dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya la rabo inay la jaanqaadaan dabaysha nabadeed bariga Afrika iyo geeska Afrika dilaacday oo dowladihii ay laba shay ku howlan yihiin inay khilaafaadkii amba colaadihii gudahooda ka jiray ay joojiyaan iyo isashadii dowladuhuna dhexdooda ay iska hayseen dowladaha kale ay hayseen in laga gudbo dowladda Soomaaliya waxaa ka dhaweysan oo diyaar ay u tahay inay wax ka qabato ficiladii colaadda wixii ka dhashay sidii lagu toosin lahaa haddii ay noqon lahayd dadkii ku dhintay oo dadkii ay ka tageen wax la taro dadkii ku dhaawacmay oo la daaweeyo iyo hantidii ku burburtay oo dowladda Soomaaliya inta karaankeeda ay ka qabato gaar ahaan iyadoo la kaashanayso saaxiibadeeda wadamada ay saaxiibada yihiin markii ugu horeysay shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya lagu qabtay magaalada Tangarowe horey waxaa shirka golaha wasiirada loogu qabtay magaalada Kismaayo ee Jubbaland waxayna qayb ka tahay qorshayaasha waaweyn ee dawladnimada loogu geynayo dadka ku nool gobolada dalka tan oo qayb ka qaadanaysa isku xirka dawladda iyo bulshada ku nool guud ahaan deegaanada dalka Soomaaliya Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka